kufsiga carruurtu ma aha arrin qofna doonayo inuu ku fikiro amaba uu ka hadlo balse xeer ilaaliye Muntaha Ibrahim ayaa waxay sheegaysaa inay tahay dhibaato ka jirta Somaliland kalidood kuma dhacaan waxay ku dhacaan carruur inamaya habla dumar dhalinyaro iyo indhaxaba laakiin waxay u badan yihiin waa carruur ilaa bishii lixaad sanadkii 2019 hay'adda Horizon waxay diiwaan gelisay 32 kiis oo kufsi carruur ah oo ka dhacay Somaliland laakiin siman oo ka tirsan Horizon ayaa waxay sheegaysaa in tirada kufsiga carruurtu ay intaasi ka sii badan tahay bishii toddobaad ee sanadkii 2019 hay'adda waxa soo galay 32 carruur laakiin Somaliland oo dhan ma aha waa Hargeysa iyo gobolka Burco ama Togdheer gabadha dhashay inanta yar ee la kufsaday waxay ka soo jeedaa gobolka Saaxil mana doonayso in magaceeda la sheego ama la isticmaalo waxaana ay sharaxaad ka bixinaysaa sida gabadheeda yar ee 5 jirka ah uu u kufsaday ninka ay jaarka ahaayeen sanadkii hore inantayda horta dhibaato adag waa soo martay markan diray in malcaamadu diray malcaamadey dhiganayeen yadiyalsa laba kale waxay hayday taweyn waan ka diray labada yar baan israaciyay hadaan israaciyay hawshaas ku dhacday waxay hayday malcaamadda wad gurigiisa hortiisa ninka ay hormarayeen waxay hayday wuxuu abti kaaliyo biyeedin cabiya macaarufana wuu ahaa oo dee qof aan garanayno ha hayba carruurtii way ku baydheen markuu baydheen buu tiyareed meel iska fadhiisiyay ayadu guriga la tagay inantii yareed hawl umu yaraysan uu kufsaday dhakhtar baan geeyay Caasha Aadan waa agaasimaha guud ee isbitaalka Berbera hooyadaas way noo timi iyada qudheedu ma la kamay fikirayeen wax kale ee wax haystoon ilmahan infection ka dhamaan waayay dhakhtarkii geey dabadna dhakhtarkii markuu ilmihii immediately arkay uu arkay in lagu xadgudbay ilmahan dabadna baadhitaankii caadiga ahaa ee kufsiga ahaa ayaa la galay agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Berbera waxay xaqiijisay in dhakhtarku ogaaday in la kufsaday gabadhan yar intaasi kadib waxa la xiriiray ciidamada booliiska sidaasina waxa lagu soo xiray ninkii kufsiga ku eedeysnaa uu qirtay waa la weydiiyay uu qirtay mudafirin meermeerin ana kufsaday kadib markii eedeysanaha la soo xiray 2 maalmood ayuu xabsiga ku jiray odayaal uu ku jiro aabaha dhalay gabadha yar ee 5 jirka ayaa bilaabay in xeer dhaqameed ay arrinka ku xaliyaan halkaasi oo eedeysanaha qoyskiisu ay lacag magdhow ah siiyeen aabaha dhalay inanta yar ee 5 jirka ee la kufsaday si loo ilaawo kiiskaasi anigoo nagay bahawshi la guda galay oo aniga la igala tashay aan xitaa aabaheed la igala tashay hawsha markii la dhameystay aabaheed loo yeedhay waxa la hawsha waanu dhameynay inuu nala qaado uu la qaatay wiimi hawsha waa la qaatay waa la galay yiri ninkana waa laga fasaxay waxaan ogaaday habeenkii la iga fasaxay ee la sii daayay dhibgeystihii inanta yar hooyadeed aad ayay uga cadhootay arrinka odaygeedu aqbalay ee heshiiska xeer dhaqameedka iyo in ninka falka geystay la sii daayo xeer ilaaliye Muntaha Ibrahim ayaa waxay sheegtay in heshiiska iyada noocaasi oo kala ah aanay dan u ahayn ilmaha yar waa koowe qofkan in dibta la soo gaarsiiyay marka laga heshiiyo isaga waxba kama gaadho waxa heshiiya waa caaqilo oday iyo odayaal wax aan faraguudkooda ba ka gaadho horta iyaga waxba kama gaadho waa mid labaad ee qofkan wax geystay wuxuu la maraabarta wixii uu geystay isagoon laga jarin oo taa waxa waxa kale iman karta qofkan uu geystay oday dhaqameedkii ka heshiiyay inuu inan yaro kale ku sameeyo ama inan yaro kale ku sameeyo marka maanta laga heshiiyo qofku wuxuu arkay wax iisiyo baritoole odaygoodii ka sii deyn karo marka qof kasta da kasta oo yahay uu la kulmo dhibaato adag oo ay kamid tahay in la kufsado waxa uu u baahan yahay la talin ku saabsan saameynta maskaxeed ee arrintaasi ay ku yeelatay يعني waxaan la yiraahdo cilmi nafsiga ama psychology-ga ilmaha dhibaato weyn baa gaadha يعني marka laga tago wixii physical ama يعني qofka jidhkiisa ku dhacay marka laga tago muxuu ahayday maskaxiyan wax weyn baa ku dhacaya Caasha waxay sheegaysaa in xaruntoodu ay eegaan ilaa 18 kiis bishii halka
ilmaha ugu daada yaree la kufsaday ee kiiskiisa ay helaan uu jiray 8 bilood waxaana ay sheegaysaa in dadweynaha ku nool deegaanada magaalooyinka ka baxsani aysan haysanin fursad badan oo ay ku helaan adeeg amaba taageero kolley anigu case baa xusuusanahay inay yaro 8 bilood jirta weli naska hooyadeed shaqaysa marka muxuu ahaa inantaa yar ilmo yaroo kale oo 12 jir baa lagaga tagay dabadeetana inantii yareedna kuwii kale oo malcaamada ka imanayay bay sharaab doonto kaligeed bay ka tagtay marka kolley qofuun muxuu ahaa xaafadda ah laakiin kuraya nin weyn aan ahayn ayaa inantii yareed ka shaqaystay inantii yareed dhakhtarkan haba la soo dhigay waxaan leeyahay dugtoonaada waxaan leeyahay hadiyad ilaahay ku siiyo oo ilmo ka qaalisan ma jiro ilmahaaga ilaasho nasiib darro hooyada dhashay gabadhan yar ee 5 jirka iyada iyo inanteedu ma ay helin wax tala bixina laakiinse waxay heleen cadaalad kadib markii hooyadu ay diiday heshiis uu odaygeedu ogolaaday maxkamadda gobolka saaxil ayaa 12 sano oo xabsiya waxay ku xukuntay ninkii loo haystay kufsigaasi garsoorihii kiiska gacanta ku hayay ayaa amray in la soo xiro odayaashii iyo aabihii inanta yar dhalay ilaa inta ay ka celinayaan lacagta ay qaateen waa markii koobaad ee arintani ay Soomaaliland ka dhacdo waxaana ay muujinaysaa in marka ay iskaashadaan hay'adaha kala duwan iyo nidaamka cadaaladdu in laga wada shaqayn karo sareynta sharciga